waxaa sharaf noo ah maantay in amisom ay timaado dhuusamareeb waxaa sharaf noo ah inay ciidamada walaalaheena hiil walaal ee reer Jabuuti inay yimaadaan halkan runtii waan soo dhaweynaynaa aad baa loogu faraxsan yahay imaanshihiina waxaa timaadeen gurigiinii waxaa timaadeen deegaankiinii awalna waad joogteen haddana waad timaadeen magaalo cusub baa timaadeen marka waan idinku soo dhaweynaynaa halkan waa meel la idinka jecel yahay waa meel la idinka soo dhaweynayo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan runtii aad idinkaga mahad celinaynaa dhiigiina iyo dhacaankiina inaad u horeysaan sidii dadka Soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen sidii dadka Soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen sidii horumar u sameyn lahaa dalkeena iyo dadkeena waan idinkaga mahad celinaynaa waan idin haynaa abaalkaas waan idin hayn doonaa insha Allah haddana waxaad timaadeen goob cusub iyo deegaan cusub oo la idinka sugaayay oo la idinkaga baahan yahay waxaan dareensanahay inay joogitaanka halkan ay joogaan ciidamadaas inay magaalada iyo deegaanka u soo jiidi karaan indha kaleeto iyo aragti kale iyo dad kale ku soo dhiiran kara inay yimaadaan marka aad baan ugu faraxsanahay runtii imaatinkiina waan idinku soo dhaweynaynaa magaaladiina iyo deegaankiina insha Allah waxaan leenahay reer walaal amisom ku soo dhawaada gobolka Galgaduud magaalo madaxdiisa isla markaasna ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Galmudug meeshaan sidii xildhibaanku uu sheegay gudoomiyaha amni darro amisom loogu yeero ma ka jirinin laakiin waxa aan rabnaa inaad nala daadiisaan ama nala kordhisaan waxa waaye dib u heshiisiinta dib loogu sameynayo reer Galmudug oo lagu khilaaf saarayo maamulkii Galmudug iyo maxaa la yiraahdaa dib u doorashadoodii labaad ee reer Galmudug inaad nagala qayb qaadatiin kaalintii muxuu ahaa amisom iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal ee dhammaan aad nagala qayb qaadatiin nala daadiisiin geedi socodkaas dadka qabay inaan muxuu ahaa amisom looga baahnayn deegaankan ama muxuu ahaa dadka si kale ugu sheegayana waxaan rabnaa inaad muujino maanta adoo ku hadlaya magaca dadka deegaankan xildhibaanada laga soo doortaan nahay waxaan rabnaa inaan u sheegno ama indhooda ay ku arkaan inaan reer Galmudug ay diidanayn ciidamada amisom isla markaas kaba si deeranay reer Jabuuti oo hiil walaal ah inay si diidanayn adinkana gurigiina waa timaadeen kalsooni ku jooga kalsooni ku soo toosa waajibkiina shaqada ku guta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano soo dhaweyntaan anagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada hiil walaal Hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba annaguna intii oo kale aan rajaynayna inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo iyo hadday tahay amniga banaanka la dagaalanka shabaab laga xoreynayo degmooyinka ay haystaan aad baan wax ugu rajayn inaan shaqo badan insha Allah nala qaban doonaan waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa meeshaan deegaankan aan joogno hore u sii shaqeynay in ayaguna shaqada nala sii qabtaan hadii la haydmo Galmudug markuu ugu horeeyay nimaadna maahin taliya qaybta 12aad markuu horeeyay nimaadna maahin in badan baan nimidnay ayagoo tagnay dhuusamareeb 2 goor iyo 3 goor waxaan nimidnay Moojaan si fiican baan noo soo dhaweeyay imikana maanta si fiican baan noo soo dhaweeyay dadka reer Galmudug iyo dadka reer Jabuuti xiriir fiican baa ka dhaxeeya heshiiskan waa heshiiskii Jabuuti lagu soo saxay si loo implementin lahaa waan ka qayb gal doonaa wixina la weydiisto hadday tahay qabaqabada shirka iyo hadday tahay la shabaab dagaalka la shabaab diyaar baan u nahay